Assalaamu calaykum. 1492 ayay ahayd markii ugu horreysay oo Yurubiyaanku tagaan qaaradaha Mareykanka. Halkaasi dadkii ku noolaa oo loogu tagay ayaa waxa Yurubiyaanku u bixiyeen Hindidii cascasayd. Qowmiyaddii u horreysay oo Yurubiyaanku la kulmaan ayaa waxaa la dhihi jiray Taino oo ku noolaa jasiiradaha Cuba iyo Hispaniola oo Haiti iyo Dominican ay hadda isla wadaagaan. Qowmiyadaas halka deganeyd waxaa lagu qiyaasaa inay tiradoodu ahayd 2 milyan ilaa 3 milyan. 150 sano kadib dadkaasi waa dabar go'een oo wax yar ayaa ka soo haray oo guursaday Yurubiyaankii dhulkooda yimi. Qowmiyadan kaliya maaha dadkii halkaas deganaa ee tiradoodu aadka u yaraatay. Waxaa lagu qiyaasay in 90% Hindida cas ay dabar go'een oo tiradoodii naaqustay. Dadkaani waxa ugu badan oo laayay maahayn dagaalada joogtada ah oo ay la geli jireen Yurubiyaankii dhulkooda boobayay, inkastoo ay dad badani uga dhinteen dagaaladaas. Waxa dadka ugu badan ka dilay waxa ay ahayd cudurrada ay Yurubiyaanku sideen ee dadkaasi ku dhacay oo ay u dhinteen. Haddaba su'aal baa imaan karta, maxaa keenay in Hindida cas cudurrada Yurubiyaanku sideen u dhintaan halka Yurubiyaankuna ay dhibaato u soo gaareen? Hindiduse maxay cudurro ugu gudbin waayeen Yurubiyaanka? Horta cudurrada dadka ugu badan dili jiray calaamadahan ayay leeyihiin. Midda hore si fudud oo dhaqso ah ayay ku faafaan. Midda labaadna si dhaqso ah ayay dadka u dilaan oo dhowr maalmood ama usbuuc gudahood ayuu qofku ku dhimanayaa. Meelaha ugu badan oo ay cudurradani ku faafaan ayaa marka ah magaalooyinka camiran oo dadku ka buuxaan oo fududahay in cudurradaasi faafa la kala qaado. Tusaale ahaan magaalada London ayaa qarnigii 18aad iyo 19aad waxaa ka dilaaci jiray cudurro ay ka mid yihiin koleeraha, maadaama magaalada nadaafadeedu aad u liidatay. Sanadii 1858 bishii August oo ahayd kulkii xagaaga ayaa magaaladii oo dhan soo urtay oo urkaas dartiis ay dadku joogi waayeen. Waxaa loo bixiyay The Great Stink ama urkii qarmuunka ahaa ee aadka u weynaa. Sanadahaas wixii ka dambeeyay magaalada London waxa ay ku dadaashay in wasakhdii lagu shubi jiray wabiyada laga daayo. Magaalooyinka waaweynaa ee qarniyada hore jiray dadka dhinta ayaa ka badnaan jiray carruurta dhasha. Taas macnaheedu waxa weeye si ay magaaladu u korto waa inay dad soo galooti ah oo cusub ay yimaadaan, dadkaas oo ka imaan jiray meelaha baadiyaha ah. Arrin kale ayaa keenta cudurrada dilaaga ah inay dadka u gudbaan oo waa xoolaha. Cudurrada infekshinka badankood waxaa noo soo gudbiya xoolaha. Qiyaas ahaan waxaa la sheegay in 60% cudurrada dadka ku dhaca ay ka yimaadaan xayawaanada, khaasatan kuwa ugu khatarsan oo dad badani u dhintaan. Cudurrada ay xayawaanadu dadka u gudbiyeen waxaa ka mid ah Ebola, Aydiska, TB-da ama qaaxada, daacuunka, juudaanka, raabiyada, furuqa iyo jadeecada. Waxaa halkaa ka cad marka in cudurrada dilaaga ah badankood asalkoodu ka yimi xayawaano kala gedisan, markaasna dadku isku dhex faafiyeen. Lo'da kaliya ayaa waxaa la sheegay inay dadka u gudbisay cudurrada kala ah TB-da ama qaaxada iyo jadeecada iyo furuqa. Marka magaalooyin ay dadka buuxaan oo qashinka iyo qurunka meel walba lagu daadinayay, wabiyadana lagu shubayay, xoolo badanna ku nool yihiin oo wasakhdaas cunaan oo cabaan, ayaa fududaysay in xayawaanadaasi cudurro ku dhacaan oo markaasna u gudbiyaan dadka ay magaalada isla deganayeen. Arrimahaas isbiirsaday ayaa waxay keeneen in magaalooyinkii waaweynaa ee Yurub sanad walba ay ka dilaacaan cudurro khatar ah oo dad badani ay u dhintaan. Dadka ay cudurradaasi ku dhacaan oo aan u dhiman ayaa marka yeesha difaac ka ilaaliya inuu cudurkaasi dhibo, oo qofkaasi isagoo sida fayraskii ama bakteeriyadii cudurka sababaysay ayuusan dhib u geysanayn jirkiisa. Laakiin waxaa dhici karta inuu cudurkaasi u gudbiyo dadka kale. Waa waxa keenay in Yurubiyaankii Hindida cascas ay u gudbiyeen cudurrada ay sideen ee aan iyaga dhibaatada u geysanayn. Waxay arrintani la mid tahay sheekada haweeneydii 30 sano xabsi guri la geliyay iyadoo dambigeedu ahaa in cudurka tiifowga uu ku dhaco dadka ka agdhawaa. Haweeneydaas ayaa cudurku uusan waxba yeelayn iyada, laakiin dadka kale ayay u gudbin jirtay. Sheekadaas oo dhammaystiran mar kale ayaan ka hadli doonaa hadduu Allah idmo, balse aan u soo noqonno Hindida cascas. Hindidaasi cudurradaasi ku dhici jiray Yurubiyaanka ama dadka ku noolaa Old World-ka. Dunida hore ee qaaradaha Yurub iyo Afrika iyo Asia kuma dhici jirin iyaga. Waxaana u sababa labadii shay oo cudurradaas faafitaankooda fududaynayay inaanan laga helin labada Ameerika. Hindidaas Mareykanada ku noolaa inkastoo magaalooyin lahaayeen, haddana ma ahayn sida magaalooyinkii waaweynaa ee Yurub ee qashinka iyo qurunku ka buuxay. Arrinta kalena waxa weeye Hindidaasi ma haysan xoolo marabi ah. Ariga, fardaha, lo'da, eyda waxaa kulligood halkaa geeyay Yurubiyaankii.
hindida cas xayawaanka kaliya ee marabiyaysteen waxaa la sheegay inuu yahay laamaha oo ku nool qaybo ka mid ah koonfurta Ameerika. xayawaanada kale ee halkaasi ku noolaana waa adkeed in marabi laga dhigo, sida bisonka oo kale oo ah xayawaan xoog badan oo ay adag tahay in la kontaroolo. marka hindida cas waxa ay xoogga saari jireen beerashada. waxyaalo badan oo maanta la beerto iyaga ayaa laga keenay. baradhada iyo yaanyada lama aqoon intaan labada Maraykan la tagin ka hor, oo Yuruubiyaankii halkaas tagay ayaa kula noqday wadamadoodii oo ku beertay. waxaa kaloo sidaas la mid ah galleyda ama arabikhida oo asalkeedu koonfurta Mexico ka yimi. haddaba magaalooyin waaweyn oo caafimaad xumo ka jirto iyo xoolo marabi ah oo ku dhex nool ayaa laga waayay meelaha ay ku noolaayeen hindida cas, taasoo keentay in cudurrada dilaaga ah ay ka badbaadaan. laakiin markii Yuruubiyaanku u yimaadeen oo cudurradii ay sideen qaadsiiyeen, ayaa waxaa dhacday inay badankood u dhintaan cudurradan khatarta ah oo difaaca jirkooda uusan awood u yeelan inuu ka hortago. halka Yuruubiyaanku qarniyo badan arkayeen cudurradan oo difaaca jirkoodu la qabsaday oo awood u yeeshay inuu xakameeyo. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum.